bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka maxaa ka run ah wixii la sheegay barnaamijka alaaba waxaan ku soo qaadannaa arrimaha ugu xasaasisan ee toddobaadkii aan ka soo gudubnay loogu hadalhaynta badan yahay toddobaadkan waxaa soo ifbaxay madal cusub oo la magac baxday hor u socod taas oo looga dhawaaqay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya madashaas ayaa waxa ay sheegeen mas-uuliyiinteeda in ay ku midaysan yihiin ku dhowaad 90 xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee dalka kuwaasi oo dadka qaar ay sheegeen in ay doonayaan in mucaaradad iyo mooshin ay kala hor yimaadaan dawladda cusub oo muddo 3 bilood oo keliya jirta taasi oo dad badan ay u arkeen in ay ishortaagayso iyo didiilada laga filayo dawladda cusub ee Soomaaliya haddaba sida loo arko madashaasi cusub ee looga dhawaaqay magaalada Nairobi walow mas-uuliyiinteeda qaar oo hadal jeediyey ay sheegeen in iyagu aysan mucaarad ku ahayn dawladda balse ay ka soo horjeedaan 4.5 habnidaamka awood qaybsiga dalka ee beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadaan barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya siyaasiyiin kala duwan iyo mas-uuliyiin oo ay ka mid yihiin xildhibaan maxamed iile geedi xerow xildhibaan hore daahir ciro oo isagoo garow ku sugan toos nogala qaybgelaya wasiirkii hore arrimaha gudaha galmudug axmed baasto iyo xildhibaan xasan kaynaan oo isna baarlamaankii ku-meelgaarka ka tirsanaa anigoo jimcaalaha ayaa idinla socodsiinaya farsamadu waa injineer mustaf cabdi abshir dhegeystayaasha kaalintooda ayay ka qaadan doonaan barnaamijka oo doorkooda ayaan qadka telefoonka iyo fariinta gaaban aan siin doonnaa aaraadooda ku soo dhowaada mar kale iyo maxaa ka run ah wixii la sheegay waa tahay saaxiibayaal mar kale jimco wanaagsan barnaamijka maxaa ka run ah wixii la sheegay ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaasha waxaa barnaamijka uga soo qayb qaadan karaan 85 iyo lambarka gaaban 488 waxaad kaloo aaraadiina aad ku soo dhiiban doontaan facebookga shabeelle media network oo toos oo aad uga dhegaysanaysaan waa shabeelle media network facebookga oo aad toos uga dhegaysanaysaan barnaamijka ra'yigeennana aad ka soo dhiiban doontaan waxaan siinayaa ugu horreyn xildhibaan daahir ciro oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aad looga yaqaano geyga Soomaaliya xildhibaan daahir ciro waadna maqashaa si fiican adeer waa ku maqlaa waa tahay ra'yigaada ku aadan madasha la magac baxday hor u socod ee Nairobi looga dhawaaqay oo dad badan walaac ay ka muujiyeen dadka qaar ay sheegeen in dawladda cusub in ay majaxaabiso ay doonayso bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaan madasha horta horu socod la baxday aniga kolley fikriyan caqliga gaaban waxaan leeyahay horu socod maahay waa dib u socod waayo dalkaanu maanta wuxuu u baahan yahay inuu horey u socdo wax ka shaqeeya inuu u dul socdana dib u socdana uma baahna madashaanu sida ay sheegeen waa niman hadda ka soo horjeeda sida wax u socdaan maanta Soomaaliya meesha ay taalla waynu ognahay marka hadiiba ay sidaa yihiin oo ay maanta oo xaaladii sidaa marayso dalku oo dalku cadow badan leeyahay danley badan leeyahay kuwaas dhamaantood ay dhantooda ay gaadayaan anigu waxaan qabaa cid alla cidda kamida xubin kamida madashaas kuwa la baxay hor u socod maadaama ay maslaxad gaaban ku shaqaynayaan dan gaaban ka shaqaynayaan aniga waxaan qabaa baarlamaanka Soomaaliyeed awal waxaan ogeyn sidii uu ku yimid oo xoogaal baanu ka ahayn haddii ay ku darsadaan ifkii yaraa iyo maslaxadii iyo dadaalkii yaraa ay hayeen
madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre hadday xubno kamida baarlamaanka ay ku darsadaan inay ka hor yimaadaan oo ay hadda bilaabaan in dib loo socdo yeeli mayno. annaga kuwa wanaagga hore u socda ayaana matala, kuwaan nama matalaan. iyagana waxaanu ku talinaynaa golaha wakiilada maadaama ay magaca iyaga xambaarsan yihiin in inta xasaanada laga qaado kooxdaas sharciga la horgeeyo, maxkamad la geeyo. fikir gaaban ayay ku shaqaynayaan, maxaad ula jeedaa? halow daahir ciro, waxaad tidhi fikir gaaban ayay ku shaqaynayaan, maxaad ula jeedaa? halow daahir ciro. haader ha waxaad tidhi fikir gaaban ayay ku shaqaynayaan, maxaad ula jeedaa haddaad u qeexdo dadka ku dhegaysanaya? waa dad maslaxad gaaban ka fakeraya oo aan fakar siyaasi ah oo taaliiq ah oo horumar. maxaad ula jeedaa maslaxadda gaaban? maslaxad umadeed iyo masiir umadeed dad aan matali karin weeye. maslaxadda dadka fikirka gaaban ku shaqaynaya waxay u baahan yihiin in dalka iyo dadka laga qabto oo aan lagu sii deyn masiirkooda. muxuu yahay maslaxadda gaaban ay ka fikirayaan, muxuu yahay aad ula jeedo? dadku waa ogtahay waxaa jirta waxa la yidhahda dan guud iyo dan gaar. dan gaar bay ka fakerayaan. dalkan dantiisana dan gaar loogama shaqayn karo. marka waxaa iga muuqata madashaas inay dan gaar ka shaqaynayso. waa tahay ex xildhibaan maxamed iile geedi xerow ayaa ku jira isna qadka. xildhibaane, adigu dabcan waad u dhuundaloosha ama ishaad ku haysay madashaas, maxay kula tahay ra'yi ahaana aad ka qabtaa? bismillahi rahmaan rahiim. horta marka hore waan salaamaya idaacadda shabeelle. marka xigta maanta waa maalin jimcaha dadka Soomaaliyeed dhammaantood dhegeysanaya. waxaan leeyahay jimco wanaagsan. haddaan ka hadlo fikirkii shakhsiyadeed madashan hadda la sameeyey, horta dhibaatada dalka Soomaaliya haysato inta badan waa dastuurka. sababtoo ah haddii dastuurkan qodob kamida oo waxaa sheegayo in golaha wasiirada laga keeni karo gudaha iyo banaanka, intii qodobka uu taagan yahay oo aan la kala soocin oo wasiirada iyo xildhibaanadu ay isku milan yihiin, waxaa meesha ka baxayaa in Soomaalidu ay wax toose oo dawladda oo wada shaqeyso yeelato. ana marka hore waxaan leeyahay dhibaato u badan meesha ka socoto waa dhanka dastuuriga. waxaa yeelay muxuu ahaa xildhibaanadu hadday golaha wasiiradu ka mid ahayn mowqif meesa ay qaadan lahaayeen, waxay noqon lahaayeen dad xukuumadda la xisaabtamo. laakiin haddii golaha wasiirada ay ka mid yihiin qaarkii waayo, waxaa laga yaabaa inay si kale u fikiraan oo ay yidhaahdaan muxuu ahaa xukuumaddan sidii dawladda hadda ku horeysaba hala rido si golaha wasiir uga qayb qaataan. marka horta dhibkaas horta waddanka uu ka jira waa mid. midda kale madasha hadda la baxday hore socod, hadday tahay madax waxa duminayso shacabka Soomaaliyeed baa ka xoog badan. waanu kasoo horjeesanaynaa, waana iska qabanaynaa oo ma ogolin dawladda hadda jirto curdunka ah ee hadda la agleelay oon ka filayno inay isbedel weyn la imaato in laga hor yimaado oo la dumiyo. taas baarlamaanka labada gole waxaa ka xoog badan shacbiga Soomaaliyeed, mana socon karto, mana laga yeelayo haddii ay tahay madax duminayso. laakiinse haddii ay tahay dad wax toosinayo oo siyaasiyiin ah ee baarlamaanka ku jiro ee dawladdu meesha ay ka qaloocato dhaliishada shirkad toosinayo waxun ma aha. marka aniga fikirkeyga waxaan dhihi lahaa haddii madashu ay u ekaato madal wax duminayso, innagu iyo shacbiga Soomaaliya dhammaanteenu waanu ka hortegaynaa, waanu diidaynaa inay wax la dumiyo. hadda ka dambe in dawlad Soomaaliya madaxweyne iyo prime minister muxuu ahaa lala dagaalamo, mooshin laga keeno, wax la rido, wax noo cuntamayo ma aha. dadka Soomaaliya way ka daaleen walow qodob dastuuri ay tahay, laakiinse dalkii muxuu ahaa hadda muxuu ahaa waxaas faahfaagi lahaa ma nihin. innagu waxaan doonaynaa wadajirka Soomaaliyeed in Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay hore uga sii dhaqaaqdo. si walaalkii daaraceenka uu sheegay cadow badan baanu leenahay oo gudaha iyo dibaddaba ah. waxaanu kaga bixi karnaa waxaa weeyaan siyaasiyan iyo shacbiga iyo mas'uuliyadda dalka u sareeyo iyo maamul goboleedyada oo isku duuban baa taa ka gudbi kara insha Allah bidnillahi kariim.
madasha hadday noqoto waxaad duminayso gacan birla ku qaban doona waana ka hortegi doona insha allah bidnillah kariim. waa tahay ex xildhibaan xasan keenaan ayaan isaguna eegayaa aragtidiisa ku aadan madashan. haye xildhibaane. xasan keenaan ayaan ula jeedaa. xasan keenaan ra'yigaada aad ka qabto madasha horu socod. bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa jimcaale oo hadda waraysiga qaadaya maanta dooda iyo idaacadda Shabeelle. waxaan kaloo salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo hawada iga dhageysanaya. waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada igula jira dooda. markaan taa ka gudbo horta arrintu laba qorsho waa. horta baarlamaan la bixi karo madal wax la yiraahdo lama bixi karo. baarlamaanku waa sharci dejin, madal wax la yiraahdo lama bixi karo. laakiin waxaa jira qudlad ama isbahaysi wax la yiraahdo la baxaa oo isbahaysigaas wax ay dalka wax lagu dhimaa maaha. war intanadaan fikir ma iskaga noqon karnaa hawshaan socota. marka oo ma joojinaa qoraan usii wadnaa waxa waaye. marka horta taas waa midda labaad. baarlamaanku hadda fasaxuu ku jiraa. waxaa jira guddiyo joogta oo guddiyadaas joogtada ay ka shaqeeyaan xukuumadda wasaarad ay ku xisaabsan yihiin guddiyada joogtada. markii baarlamaanku 2 bilood oo fasaxa oo ka soo laabto ayaa waxaa lasoo hordhigaa waxqabadkii xukuumadda. wasaaradii dhaliille waxaa loo yeeraa wasiirkeeda oo baarlamaanku markaas u yeeraa intay guddiyadaas soo horkeena markay baarlamaanku fadhigiisa koobaad. hadday midka hore socodka sameydana wanaageeda wasaaraddaas hor keenaa. horta sidaasaa baarlamaanku yahay. marka nimanka kan xildhibaanada oo hadda hore socodka la baxay way qaldan yihiin. waxay ku qaldan yihiin ama qodobka labaad dalkay ku shirayaan dalka gudihiisa maahana waa magaalo islaameed oo Nairobi ayay ku shireen dawladda oo saasay hadda dastuuri maahana dastuurku waa waxay u dhibeen. sidaas daraadeed marka ummadda Soomaaliyeed maanta qas iyo lab uma baahna. waxay u baahan tahay baarlamaan hufan oo la xisaabtama xukuumaddeeda warfaxaafadda u soo dhiga. hadday xukuumaddu qaladaadka gashay la xisaabtan waa xukuumaddu qaladaadka gashay waa in lasoo dhigo banaanka oo la yihahdo shacabkuna oo loo sheego oo la yihahdo xukuumaddu qaladkaasay gashay sidaasay ku waxaysantaa sidaas hore socday ku tahay sidaas inay usoo dhigaanaya. nimanka marka Nairobi isugu tago xildhibaanada lama dhihi karo xildhibaano Soomaaliyeed waa kitaabkay mareenna waa qabanaya. waayo midda kale oo saddexaad ma gaarin xataa xukuumadda xilligii xataa laga keeni lahaa dhaliisheeda la gaari lahaa oo 6 biloodba ma jirtan. dastuurku wuxuu qorayaa 6 bilood ayaa dhaliilaha la soo gudbiyay markii guud ahaan xukuumadda la waxaynayo oo dhaliisheeda iyo wanaageeda la soo gudbiyay. hadda muddo 3 bilood ka yahay jirtaa tan. marka nimankaas waa sida daar xiiro oo uga dhawaajiya asagoo xogaa waa ka leexleexda daar xiiro waa niman dhaqaale raadis ah. anigu ka leexleexamayo iyo wasiir raadis. waxa weeye wasiirka mid calaf u galaa qaatay. anigu waxaan kamid ahaa xildhibaanadii gudahana in laga qaadan karo iyadoo gudaha keliya laga qaato baarlamaanka iyo golaha xukuumadduba ay gudaha laga qaato ayaan waxaan furnay xilligii hadda ra-iisul wasaaraha ay banaankana in laga qaadan karo gudahana laga qaadan karo. marka aniga maxaa wasiir la iga dhigi waayo oo golaha wasiirada la igu dhigi waayo. horta nimana waayo nimankaas waxay ogyihiin ama haykays dhaqaale ku raadinayay hawlo kale ku raadinayo siyaasadeed. dawladdan xukuumaddan socota waa xukuumad hufan sidaan u arko anigu. dhaqaalana bixin maysa dhaqaalaha bangiga ku jirtaa ayadaa anigu waxaan u bixiya la xisaabtanaaba la yidhahdaa. waxa weeye bangigay ku jirtaa oo iga aamus xukuumadii hore ay ku shaqayn jireen xildhibaan oo aamus intaan qaadee markan ku shaqayn mayso. shacabka Soomaaliyeed marka ma yeelayo nin xildhibaana oo xukuumad dalkan wuxuu qabanaysa iska keenaya. waxaan la qabaa saaxiibkayga hore xasaanada laga qaadayaa waana laga xiriiraya baarlamaanka mana matalayo ummadda Soomaaliyeed. waa tahay axmed baasto aan siiyo isaguna wasiirkii hore arrimaha gudaha galmudug. axmed baasto ra'yigaada madashaan la hadal hayo ee horsocod la magac baxday. bismillaahi araxmaani araxiim.
waxaan marka hore si gaara u salaamayaa saaxiibadayda khadka ku jira xildhibaankii hore daahir ciro xildhibaan maxamed ciidle geedi iyo xildhibaan xasan keenaan xalane mar labaad waxaan si gaara ugu mahad celinayaa raadiyaha shabeelle oo toddobaad walba soo bandhigaya ifinaya dhacdooyinka dhabta ah ee dalka ka jira si bulshadu ula jaan qaado hadday sax tahay iyo hadday khalad tahay fikirkaa wanaagsan ood usoo bandhigaysaan shacbiga soomaaliyeed si gaar ahaan raadiyaha iyo madaxdiisa uga mahad celinaya waxaan marka hawshaan haddaan salka hoose aan u raadso xildhibaanadu marka hore waxay matalaan shacbiga ayay wakiil u yihiin oo ay matalaan runtii waa faa'iido weyn in dawladdii soomaaliyeed 329 xildhibaan ay shacbigii soomaaliyeed ay matalayaan marka 329kaasi oo sharci dejiyaashii ah ciddii wax dooranaysay ah ciddii mooshin hadday wax khaldamaan toosinaysay ah waa nasiib darra marka runtii in maantay iyadoo 3 bilood ay jirto dalkiina uu ka jiro duruufo adag oo abaar iyo colaado ay shacbigii soomaaliyeed baaba'ayaan oo masiibadaasi qarani oo laba culus ay ka jirto in xildhibaanadu markii ay galeen fasixii koowaad loo baahnaa inay booqdaan shacbiga dhibaatooyinkaas aan kor ku soo sheegay inay tagaan oo ah shacbigii ay matalayeen soona doortay inay dhibka la qaybsadaan meeshii aan ka sugaynay nasiib darro weeye dheg xumi weeye inaan maqalno madal oo aasaaskeedu uu yahay dumin la duminayo dawladdii markaa jirtaba lagu duminayo markaan dib u fiirin xilligii cabdullaahi yuusuf xilligii cabdiqaasim xilligii sheekh shariif xilligii xasan sheekh afartaaba waxaa lagu dumiyey madal maanta markaan ogaanay madashu inay tahay boholgaleen lagu duminayo hadba shacbiga soomaaliyeed oo dhibaatooyinka aan soo sheegay ku jira xildhibaanadaana aan islayn xildhibaanadii ugu qualitiga badnaa ugu caqliga badnaa lasoo xulay aqoon-yahano ka siman dhalinyaro danqaraysa ay ka mid yihiin nasiib daraanu aragnaa markay shacbigii oo dhibaatooyinkaa ku jira booqo lahayeen inay dal ajnabiya intay tagaan madal oo ah dumin ah inay soo dhisaan aad baan uga rajaxunahay aad baanan uga filayn aragtida noocaasi waa dhibaato usoo hoyatay shacbigii soomaaliyeed waana inaan ka fekerna haddaan nahay mas-uuliyiintii dalka joogtay duruufaha adag ee dadka iyagu ay ku jiraan ummadaana laga fekero mustaqbalkeeda iyo aayaheeda waxaan aaminsanahay in go-aankaas lagu dhisay madal xildhibaanadaasina jooga kenya ay gaareen inay shacbiga ay matalayaan ka noqdaan ereygaas erey looga fadhiyey ama waktiga maanta iyo duruufaha adag ee lagu jira ka tarjumaya midna ma ahan mana ogolaanayno in 26 sannadood oo colaado iyo burbur dalka uu ka jiray in maanta dib loogu laabto dumin cid aan ka yeelaynaa ma jirto wixii aan u wakiilanayna maaha noloshii iyo dareenkii shacbigu qabayna maaha abaaraha iyo colaadaha jira qaab lagu xalinayana maaha ee waa dumin hogaankii cusbaa iyo dawladdii cusbayd ee la dhisay lagu duminayo aragtidaas aragti shacbi qaadanaya maaha aragti lagu matalayana maaha waa aragti khaldan inay ka laabtaan oo shacbiga ay raalli geliyaan go-aankaas inuusan ansaxayn inay qiraan baan u jeedinaynaa haddii ay rabaan inayna matalaan dad soomaaliyeed oo waktigaas adag iyo duruufahaas adag ku jirana ay rabaan inay matalaan waa inay caddeeyaan oy ka laabtaan haddaysa ka laaban meel kasta oo shacbi soomaaliyeed oo jooga waxaanu isku dhaarsanaynaa inaanu ilaalinayno 4 sannadood ee dawladdaasi jirto annagoo u damqanayna dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo abaaraha iyo dhibka baahsan ee shacbiga soomaaliyeed uu ku jiro si uu uga qayb qaato ugala mid noqdo shacbi weynaha adduunka oo kaleeto ku nool nolol iyo horumar iyo mustaqbal iyo aayo leh
siday dadku ku gaari lahay inaanu ku fakerno ilaalino 4 sannadoodna dawladdaasi ciidana aysan dumin karin ayaanu qaadanaynaa haddii aan nahay dadkii Soomaaliyeed ee xilalka iyo darajooyinka ka soo qabtay dalkan inuu hore u socdana ku soo shaqeeyay rabana rabitaanka shacabka. waa tahay daahir ciro haddii aan ku laabto xildhibaan daahir ciro madasha walow aysan hadda si rasmi ah ugu dhawaaqin in ay tahay mucaarad laakiin ififaalaha dad badan ay bixinayaan ay ku sifeynayaan in ay ka soo horjeedo dawladda cusub oo taageero iyo kalsooni xoog leh ka heshay shacabka maxaa dhanka shacabka iyo dawladdaba kala gudboon ayay kula tahay ra'yiga aad qabto adar waa mahadsan tahay horta sideedaba waxaa la yidhaahdo mucaaradku waa toosin mucaaradku waa ifiye mucaaradku waa khalad saxe horta mucaarad maba ahaan mucaaradna laguma sheegi karo hadday mucaarad yihiinna kala aan hornimaaneen sababta waxaanu arki lahayn inay diyaar u yihiin inay wax saxaan laakiin waxaa noo muuqatay in ay ahayn dad wax saxaya wax sixidna u socda laakiin ay yihiin dad maanta doonaya inay maslaxadooda gaarka ah ay ka shaqeeyaan maslaxadooda gaarkaana waa isla garan karnaa oo wax qeexid u baahan ma ahan shacabka Soomaaliyeed marka waxa iyaga kala gudboon dadka magacooda iyo masiirkooda iyo awoodooda sheeganaya oo ku hadlaya oo magacoodii ay matalaya waxaa kala gudboon inta magaalada Muqdisho joogtaa haba ugu cuslaatee in si fiican looga hor yimaado mudaharaado looga hor yimaado dadku ay cabiraan raayigooda miidiyaha laga hadlo tabeelayaal la qaato madasaas la ifiyo inay dhibaato dalka iyo dadka diyaar u tahay inay horseedo shacabkana ay intaa ku matali karin shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin in gacmaha la isqabsado waxay u baahan yihiin dhibaatada jirta dalka sidii lagu xallin lahaa in ay xukuumaddu horseed noogu noqoto innaguna aanu garab ugu noqono tan loo baahan yahay in lagu shaqeeyo waa taas tan baarlamaanku sidiisaba sida keenaan sheegay waa run waa sharci dejin dalkan wuxuu u baaba'ay wax kale maahan waa qabyo qoraal maalin walba ayagoo waajibkii ay lahaayeen uu yaallo oo aan dhamaystirin oo aan hal xeer diyaarin oo aan hal xeer ansixin ayaa waktigu ka dhammaadaa marka intii ay shaqadoodii qabsan lahaayeen in ay maanta intay dalalsheega tagaan in ay go-aano ku gaaraan in ay dalka masiirkiisa kaga hadlaan inay maslaxadii ummadda ay kaga hadlaan ay wax ku yeelayaan ma ahan wax ummadda Soomaaliyeed qaadan karo waa dhaawacna maanta waxaan u baahnay kii hore jira in la dhayo laakiin mid hor leh in la sameeyo maaha mid aan qaadan karno maaha mid ay nagu matali karaan marka hadiiba ay sidaa tahay waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo in madasaas dadka sheegtay hor socodka sheegtay oo dib socodka in gacan bira lagu qabto in si wada jir looga hortago in la ifiyo waxaan ognahay dadka ku shaqaysanaya waxaan ognahay dara gaar ah inay wataan waxaan ognahay dawlad gaar ah inay u shaqaynayaan adeer uma baahnin xildhibaan dawlad gaar kale u shaqaynaya waxaan u baahnay xildhibaan dadka iyo danta guud ee shacabka matali kara laakiin kuwa aan ognahay meelaha ay ka yimaadeen meelaha ay ka shaqaynayaan fikradaha ay wataan amiin xaamir maa khayr allah siiyo u ducaynayaayo waa uu soo sawiray magacyana waa uu ku qoray marka dadka noocaasa oo magacyadaa wata hadda ha ogaadeen dadka ay matalayaan waa shacabkii Soomaaliyeed oo xukuumadda farmaajo uu hogaaminayo khayran ra'iisul wasaaraha ka yahay sababta u ahaa in la doorto haddana inay garab taagan yihiin barbar socdaan ayaguna horseed noogu noqdaan annaguna aan garba u noqono baanu diyaaruna waa tahay xildhibaan maxamed iile geedi adiga tala ahaan maadaama aad in badan baarlamaanka la soo shaqaysay waa joogna aad u ahayd xukuumado badan oo la riday dib u dhacyo badan oo dalka uu ku soo jiray adigoo xildhibaan baarlamaan ka tirsan ah weliba guddiyada ugu sarsareeya ka mid ahaa casharadii laga soo bartay iyo waxa aad qorshe iyo fikir aad ku biirinayso madashaas siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ku midoobay
aniga horta nimanka xildhibaanada hadda dooda dadka mas-uuliyadda dooda ugula jiro qaarkood waxay sheegayaan in xasaanada laga qaado. horta xasaanada nimanka dastuur bay Soomaaliya leedahay, dastuurkaa qeexaya habka xildhibaan uu ku waayi karo muxuu ahaa xasaanadiisa. laakiin waa su-aashu ha ahaato nimankan ma qaldan yihiin mise ma saxsan yihiin. nimankan hadda madasha la baxay haddii horta baarlamaanku ma aha sharci dejiye kale maaha. baarlamaanku waa sharci dejiye, waa la xisaabtan, waa masalaad, waa inuu miisaan dadka dejiyo ama diido. marka afartaas qeyb ay shaqadiisu tahay. haddii ay noqoto nimankan mid waxa duminaya oo ay tirada ay sheegteen ayaga waxay sheegteen inay 88 de baarlamaankii weynaa ee xukuumadda ku shaqa lahaa 275 ka ahayd muxuu ahaa way tirada bandeed way maqan tahay ilaa 140 xildhibaan baa maqan. marka ma qabo hataa shacbiga Soomaaliya asoo kicin inay wax meel mariyaan inay helayaan, sababtoo ah baarlamaankii weynaa ee aqalka hoose ee ku shaqa lahaa xukuumaddan arrintaasi tuu taageersan yahay. waana shalaysay dadka Soomaaliyeed ee shacbiga Soomaaliyeed u farxiyeen oo u keenay isbedelku bay weli ku taagan yihiin. hataa tiradan hadda wax ku dhawaaqday haddii ay noqoto tiro ujeeda goonida baarlamaankii weynaa oo ku sifeysnaa Soomaalinimada iyo wadaninimada kii meeshiisu weli taagan yahay. marka waxaan qabaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee xukuumaddan ku shaqada ee 275 ee samadoonka ah inay ku filan yihiin inay madashan hadday damacdo inay wax ka loociso inay ka adkaadaan. taa waa midda kale dowladdii hore aniga aan baarlamaanka ugu jiray madaxweynena uu ku ahaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ragaadiyey oo ay meel la gaari waysay waxay ahayd muxuu ahaa xukuumad la duminayo. sababtoo ah wasiir baa hadda xilli markuu xafiiska fahmiya xilka laga qaadaya ku kala imaanaya kiina markuu haddana dhaho ama wax fahantaa oo talaabada hor u damco waa la duminaya. marka sidaa darteed anagu waxaan ogol lahay daan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka mid nahay iyo shacbiga Soomaaliyeed inay 40 sano hadda soo socoto inay wada shaqeeyaan madaxweynahan iyo ra'iisul wasaaraha si dalkan loo gaarsiiyo doorasho xor oo xalaal ah iyo si loo dhiso ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo si abti dadweyne dadka Soomaaliya looga qaado. waxaan ogol lahay inay la wada joogo la wada shaqeeyo hor loo sii socdo. marka madashan haddii ay tahay madaxa duminayo baarlamaanka kale ee tirada badan leh yaa naga filay inay naga qabtaan oo waxay hor istaagaan. haddii kadib halkiisa ku saleysnaa ujeedda hoose si walaalkii uu sheegay oo gaar ah dadkan faraha badan ee ujeedada Soomaaliya ku shaqeynaya ka weyn. marka waxaan qabaa cabsi weyn hadda aan la qaylino ma jirto. baarlamaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee ku shaqeeya Soomaalinimadu waa inoo joogaa, waa inoo howlgelaya, waa inoo shaqeynaya insha Allah bidilkiin intaasaan naga filan inay nimankan haddii xumaa ay wataan inay naga qabtaan. waa tahay xildhibaan xasan keenan haye adiguna waxaad ka qabto oo aad la wadaagayso waay aragnimadaada ku aadan xukuumadihii kala duwanaa ee mooshinadu ay hantaaturiyeen iyadoo dawladdan dad badan ay sheegaan in rajada ugu badan midda laga qabo ay tahay oo haddii ay shaqayn weyso quus iyo rajo xumo dalka ay ragaadin karto. haye horta in la shaqayn waayo horta wasaaraha waxaa weeyaan hogaankii xukuumadda weeyaan. hadda ifafaalaha muuqdo waad u jeedaan wasaaraduhu xafiisyadii iska marnaan jiray, shaqaaluhu ka maqnaan jiray, wasiiradii ka maqnaan jiray. hadda wixii ma jiro. wasaarad kasta markaa tagto shaqaalihii waa buuxa, wasiirihii xilgan bay ku jiraan. taas waxaa keeni hogaanka fiican ee wasaaraha hadda jira oo la yimid. insha Allah bini'aadam kariim way xukuumadda way la shaqeyn doontaa. inaan muxuu ahaa ma shaqeynayso ma aha. xukuumaddan waa la shaqeyni shacbiga Soomaaliya waxay ka rajeynayaan insha Allah bini'aadam way gaaraysaa. waa tahay xildhibaan xasan keenan haye adiguna waxaad ka qabto waay aragnimadii laga dhaxlay xukuumadaha kala duwan ee
mooshinadu ay meesha ka saaraan oo marba wasiirro iyo xukuumad cusub dalka ay ka howlgalaan iyagoo bilo kooban uun shaqeeya haddana laga hor yimaado dhibaatadii laga dhaxlay xilli dadka soomaaliyeed ay aad u daneynayaan soomaaliya oo cageeda isku taagta dalka oo ciidan qaran yeesha adeegyadii bulshadana dawladdu ay ha qabtirto. horta mar labaad waa intaana u gudbin su-aashaadi weydiiday saaxiibkay mid uu yidhi baarlamaan wax yar celinayaa xildhibaankii hore taas maxay tahay baarlamaanku wuxuu ku waayaa xilkiisa uu yidhi anaa idhi macnaha waa in xasaanadda laga qaado xasaanadda waxyaalaha looga qaadi karo qodobo kamid ay hadda ku jiraan nimankan hore socodka xildhibaanadaas waxaa kamid ah dastuurka baarlamaanku dastuurka qoran inuu ku dhex shaqeeyo wax banaanka ka ah hadduu ku dhaqaaqana xasaanadiisu banaanka ay tahay waa dhacaysa qaadisba uma baahnaba waxaa kamid ah haddii uu dawladaha dariskaah ama kuwa kaleba uu ninka xildhibaankaa siyaasadiisa inta la tago ou la xirto sida haddaba muuqataba ila dalka kenya ayay tageene xasaanadiisa halkaasay ku jirta haddii la dabagalo sida xaqiiqada ah dastuurkayna ku qoranta oo macnaha isaga sidiisaba xasaanadiisu waxayba ku eg tahaba inuu ku dhex shaqeeyo dastuurkaas wax ka dhex baxsan haddii ninka xildhibaankaa oo dhex galo xasaanadiisu waa jirta xeeriyadu uma baahna marka laba qodobay ku galeen shirka ay ku qabteen nairobi horta waa xasaanadeedu waa ku jirta qodobka labaad waxay sameeyeen baarlamaan lama baxo horusocod dastuurna kuma qaso waxaa la rabaa waxa dastuurku waray qofka hadduu kale xasaanadiisu waa jiray marka qodobka labaadna kaas waa qodobadii marka uu ninku xilka ku weynayo waxaa la ka harta geeri iyo isagoo iscasila marka horta waaba bartankayda uga jiraan waaba jiriyeenba qodobkaas waa jiriyeenba qodobadii uga bixi lahaayeen baarlamaanka oo xasaanada ku weyni lahaayeen taas waa mid xukuumadii hore waxaan ka dhaxlay qabad badan markaan xukuumadii hore usoo laabtay su-aashaad weydiiday waa qabad badan ayaa jiray qabadkaasi sikankaasi waa waxaan meesha maanta na dhigay oo dawlad la-aanta aan ku weyn waa kow xukuumadihii horeyso ma shaqay jirin oo qaabka hadda xukuumaddaanu la timi dardarta ah waxba ka duwane waxay jireen sida saaxiibkay u sheegay shaqaaluhu ma shaqo tegi jirin mushaarkii ma la qaadanayo dhihi jira markay wax qaadanayaan inta badan ma la qaadan jirin wasiiradu kormeerka wasiir kastaaba meeshii oo xil saara ma kormeeri jirin isma dul taagi jirin oo ma kontarooli jirin shaqaalihiisa iyo wasaaradda arrimahay qabanaysa loo xil saartay hadda waxaa taagan hadda inta labada bilood ayay shaqaynaysa soomaaliya oo dhanaa wada oo waxaan hadda anugu kaligay sheegaya maaha dardaray ku wada waa iska dhici doontaa middaa kolley waa iska soo bixi doonaan wasaarado loo yeeri doono dhaliila leh kuwaasna hadde baarlamaanka u madax banaan inuu yeero laakiin siday u badan yihin anugu hadda waxaan u arkaa wasaarad kastaaba inay hawsheedii ay hore u gashay kow ra-iisul wasaaraha qaybta kormeer asna wuxuu ku sameeya wasaaraduhu habsamo socodkay ku shaqaynayaan ayuu kormeeraa dekeda tag aeroboortka tag wasaaradda bila tag sida loo joogo ayuu asna sameeya marka waa kala duwanta marka nimanka marka soomaaliya xoogaa markaan waxaa u baxay xukuumad shaqaynaysa marka nimanka ayagoo hadda hawshaas galay hadda anigu uma socdaanaan qabaa xukuumadda soomaaliya oo dhamayba indhaha ka ridaya marka saa isa soomaaliya indhaha uga riday in saaxiibkay daar ciire wuxuu yidhi xamara usaldhigay xamara banaan baxa daar ciire loo banaan bixi maayo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dawla kasta kuwa waa looga banaan baxaya wax la dhowro garab maa marka anigu sidaasaan soo jeedaya waa tahay axmed baasta haye bismillaahi araxmaani iraxiim runtii saaxiibadayda ku jira ayaa tilmaamo badan bixiyey aragti guud iyo qaabkii wax loo toosin lahaaba waa laga wada hadlay laakiin anigu ereyga ay ku dhawaaqeen xildhibaanadu oo ah madali waa boog weeye horta boogna ninka ay ku taallaa dareemi kara ummadda soomaaliyeedna maanta madal in la hor keeno sida kaankarada loo jaroo kalaan qabaa in madal sideedaba la diido sababtay tahay waayo aragnimo iyo khibrad iyo tusaale noogu filan baarlamaanadii hore wixii ay wax ku duminayeen baa madal ahayd marka madal baan abuuray waxbaan saxayaa waxbaan toosinayaa waa ra'yi kala dheer weeye waxaasi annagu waxaan qabnaa inaysan suurtagal ahayn ummadda soomaaliyeedna maantay
meel laga hor istaago oo laga hor yimaadaa ma joogtaa, meel laga toosiyo, laga mideeyo, laysku ururiyo, la saxay taagan tahay sida aragtida guud ay tahay. shacbiga soomaaliyeedna uma baahna in dib dambe loo abuuro khilaaf. maanta dawladdaa jirta, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aan weli khayla ka imaan, buuqna ku dhex jirin, dhismana uu socdo, iyo shacab u ooman dawladnimaan taagannahay. marka in la saxo oo la garab galo oo la toosiyo oo lala taliyaan u baahannahay maahane in la dumiyaa marnaba uma baahnin. aragtida saxdaa marka la aado weeye. soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in ummaddan la baro hanaan dawladnimo, lagana leexiyo waddooyinka khalkhaldan ayaa dadku maanta u baahan yahay. la soco wax walbaaba, la tilmaamo arrimahaas oo dhan. waxaan ula jeedaa si dawlad wanaag loo helo weeye, oo dawladda soomaaliyeedna ay u hesho shaqo. runtii waa la qabaa ragga saaxiibadeeya oo hadlay, oo 3 nin oo xildhibaanadii hore ahayd. maanta waxaa muuqda isbeddel iyo iftiin. dawlad golaheedii wasiiradu 2 saac oo subaxnimo lagu kala cararaya xafiisyadii, diyaar loo yahay in la shaqeeyo, laga baqayo madaxdii qaranku inay ka hormarayso. waa tusaale cusub oo maanta kusoo biiray sanadahan dambe wixii jiray wax ka bedelan weeye. marka inaan kaabno oo aan la shaqayno oo aan kalsooni siinaan u baahannahay maanta guud ahaan. inaba ha la ekaate uma baahan. baarlamankana runtii waktiga iyo duruufaha dadku qiimayn bay u baahan yihiin. xildhibaanadaasi madal baan dhisnay iyo wixii hore wax lagu dumiyo madalii maanta dadka soomaaliyeed uma cuntamayse. waxay u baahan tahay dhismahaas iyo dawladdaas tartiib u tallaabsanaysa inaan garab galno, saxno. shacbiga soomaaliyeedna dhibaatooyin intii uu soo mari karo waa soo maray. maanta wuxuu u baahan yahay in la dhayo, wuxuu u baahan yahay in la saxo, wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo, in kulligaya aanu garab istaagno si aan uga baxno mugdiga iyo dulinimada maanta ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka baan ee hor yaalla. caqabadahaas oo dhan sidii loo dhammaystiri lahaa. waxaan marka leeyahay oo hadalkayga uga baxaya oo ku toosinaya ummadda soomaaliyeed oo dhami guud ahaan talooyinka xildhibaanadu ay sheegeen iyo aniguba maantay dawladdaas soomaaliyeed ee maanta dhalatay in muwaadin kasta oo soomaaliya, qof kasta oo maantana dhegaysanaya, inaan wejigii hore ee ahaa duminta inaan aasno, furno bog cusub oo dawladnimo iyo garabgelid iyo garab istaaga. taasaa soomaaliya dan u ah, taasaa soomaaliya mustaqbal yaayaheeda ah. waxaan ku talinayaa madaxda soomaaliyeed ee maanta shaqaynaysa ee hoggaanka ahna laftirkoodu shaqada ay hadda hayaan oo aan u aragno shaqo toosan inay tahay, iyaguna inay sii laba ujibaaraan. cadaalad baa dadkan deeqde, cadaalad in loogu adeego. haddii dadka soomaaliyeed cadaalad helaan, qof walbaa waa qancaya, qof walbaana waa dadaalaya. xildhibaanada aan madasha ka mid ahayna waxaan kula dardaarmaynaa dareenka aan muujinayno oo aan ka qabno madal dareenkaa ka xoog badan inay iyaguna qaataan si dadka iyo dalka loo badbaadiyo. iyagana waxaan leenahay oo kula talinaynaa walaalayaal, madal idinma aanaan dooran, madal dooni mayno, madal uma aragna inay dhismo tahay, inay sharci ku shaqaynayso uma aragno. waa meesha laga dumiyo, looga duulo dawlad kasta oo dhalata, garoonka ay caga dhigata weeye fawdadu. waxaan ku talinaynaa oo soo jeedinaynaa, waanan ka codsanaynaa si walaaltinimo ah, adinkoo xildhibaanadii shalay la doortay ah, waxna doortay ah, inaad ummaddan adeega la idiin idmaday oo sharci dejinta ah inaad ku shaqaysaan. ummaddan inaad garab istaagtaan oo wixii aad ku dhaarateen oo aad ballan ku qaadeen inaad oofinaysaan, oo ilaahayna idinkula xisaabtamayo, ummadduna idinkula xisaabtamaysa inaad aadaan waddadaas, inaad aadaan. madal dambe xildhibaanadii u istaaga ee yidhaah annagu waxaan nahay kudladaas madal hebele la yidhaahdo oo la yidhaahdo madasha waxaan nahay horu socod,
wax madal ah oo hore u socdaa ma jiraan. madal dhammaanteed waa dib u socod, madal dhammaanteed waa dumin, madal dhammaanteed waa hor istaagga dawladnimada, madal dhammaanteed waa xasuuqa shacbiga sidaan u naqaan. qaata aragtidii laydiin idmay oo baarlamaannimo oo aad u adeegayseen shacbigaas Soomaaliyeed ee dhibaatada muuqataa ku dhex jiro ee adduunku u soo gurmanayo. adinkaa xildhibaano oo sidii dadkaasi uga bixi lahaayeen dullinimadaas iyo burburkaas iyo foolxumada ay maanta ku jiraan, aragtidaasaa laydiin idmaday ee ku shaqeeyaan. adinkana idinkula talinaynaa. aad baadna u mahadsanta. waa tahay goordhow dhegaystayaasha ayaan siin doonaa dareenka iyo ra'yiga ay ka qabtaan madasha la magac baxday hor u socod oo dad badan ay walaac ka muujeen in ay mucaaradayso amaba ay mooshin ka wado dawladda cusub walow iyagu ay iska fogeeyeen. balse markan adduunka soo mara kulli waa dhadhamisee adduunka soo mara kulli waa dhadhamisee keeni caanaha diishu way ka maratahay intigeeni xoolaha waa doofinaysaa intanii qurxoonay duxulbaad ka shidateen dhulku yuu nabaadguurin keeni caanaha diishu way ka maratahay intigeeni xoolaha waa doofinaysaa intanii qurxoonay duxulbaad ka shidateen dhulku yuu nabaadguurin abaartan iyo dhowrsano way kala dhinayda dawlad galatay waa kow abaartan iyo dhowrsano way kala dhinayda dawlad galatay waa kow tega iyo indhow yeel qaranka haddaan ciida miirani diinacaaga taagnay oo balladu dhawaaqdeen dagaha shacabka ugu shubin way dheeliyaysaa qaranka tega iyo indhow yeel qaranka diinacaaga taagnay oo balladu dhawaaqdeen dagaha shacabka ugu shubin way dheeliyaysaa nimaa kula dhalan miyuu nabada kula dhisaya nimaa kula dhalan miyuu dheeligaa ilaasha nimaa kula dhalan miyuu dhaxadda kaa dusiiya nabada kula dhisaya nimaa kula dhalan miyuu dheeligaa ilaasha nimaa kula dhalan miyuu dhaxadda kaa dusiiya hataa wada dhalad walaala iskacel warmaha u dhigan warwareegyo waaba shaw dhimay
dhimay warwareegyo wabasha u dhimay waa tahay heestaasi waxay dhextaal u ahayd barnaamijkeenna maxaa ka runa wixii la sheegay ee dhegeystayaasha ra'yigooda noogu soo diraya facebookga iyo weliba lambarka gaaban ee 488 haddii aan eego gabar la yidhaahdo safiya oo joogta muqdisho waxay leedahay shacabka dowladda ha la shaqeeyaan si aynu horumar wanaagsan u gaarno ayay tiri dhegeysto kale waxa uu leeyahay waxaan u mahad celinayaa marti sharafta barnaamijka ka qaybgelaya waxaa lagu magacaaba dhegeystayaas xasan maxamed absuge waxau leeyahay waxaan joogaa koonfur africa marka hore jimco wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel weliba oo ay joogaan waxaan aada uga xumahay in durba dhaliil dowladeed soo baxdo waxaa su-aal iga ah soomaali weyn shimee ka baxaynaa isqabqabsi siyaasadeed iyo colaado waa kuwa noo horseeday burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday ayuu leeyahay shabeelle media network dhegeystahaas ayuu ra'yigiisa noogu soo diray ee facebookkeenna dhegeysto kale waxa uu leeyahay oo lagu magacaabo cabaas gaadaco shabeelle waa idin salaamay waxa uu leeyahay dowladda soomaaliya waxaa dhibaatada u keenay waa isqabqabsiga iyo mar waliba in dowladda la rido waa ra'yigiisa saadiq cabdullaahi cabdina waxa uu leeyahay waddanka waxa burburinayo mar walba niman calooshood u shaqaystayaal ah weligoodna musuqa cuni jiray baarlamaanka ka soo horjeeda dowladda maahan xildhibaano soomaaliyeed marka horena musuq ayaa lagu soo doortay shacabku ha ahaadaan kuwo heegan u ah in dowladdooda difaacaan waana la dagaalami doonaa waa ra'yigiisa dhegeysto kale waxa uu leeyahay waa fahmi waaya dabcan dhegeystahan ra'yigiisa bahda shabeelle waa idin salaamo keliya ayuu dhegeysto kalena kusoo koobay ra'yigiisa dhegeystayaasha noo soo diraya ama facebookga ra'yigooda kasoo dhibanaya aad bay u badan yihiin lambarka gaaban ee 488 dhegeystayaasha kale ee araadooda iyaguna kasoo dhibanaya haddaan eego waxaa ka mid a dhegeystaan oo leh assalaamu calaykum radio shabeelle waa maxamed shariif ibraahim oo jooga madiina xildhibaanada mucaaradka ah waa kuwo aragtidoodu ay aada u liidato marka ilaahay ha ka cabsadaan haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waan banaanbaxaynaa ayuu leeyahay waxaa kaloo ra'yigiisa soo dhiibtay dhegeystahan oo leh bahda shabeelle waa cabduqaadir ibraahim oo jooga madiina nimankaas madal ma ahee waa murugo hor leh iyo burbur cusub bay noo horseedayaan ilaahay hanaga qabto samir iyo caano ayuu leeyahay hanaga siiyo burbur horsocod iyo horumar ayaan doonaynaa waa ra'yigiisa waa tahay dhegeystayaasha facebookga nagala soo xiriiraya waxa ay uga soo qaybgeli karaan shabeelle media network oo toos shanta qaarad adduunka meel kastoo aad joogtaan aad kala socon kartaan shabeelle news.com bogga aan internetka ku leenahana live streamka ayaa toos nooga dhegeysanaysaan ra'yigaada kasoo dhiibo like soo dheh shabeelle media network si aad u hesho barnaamijyada iyo wararkeenna ra'yigaadana aada uga dhiibato dhegeystaan waxa uu leeyahay abuukar maxamuud sheekh oo jooga shabeellaha hoose anigu waxaan dhihi lahaa xildhibaanada qarandumiska ah kulligood ha lagu xiro xabsiga godka jilcow waayo ma ahan kuwani wadaniyiin waa kuwo u shaqeeya shisheeye wallaahi hadday xukuumaddani isku dayaan in ay ridaan hoteelada ay degan yihiin ayaan ugu gelaynaa waa ra'yigiisa waxaa kaloo dhegeystahan uu leeyahay assalaamu calaykum waxaan joogaa ceelasha anigu waxaan dhihi lahaa madaxda dalka ha ku dadaalaan wixii danta dalka iyo dadka ah dhegeystayaasha telefoonka nagala soo xiriiraya 85 ayaan iyaguna siinayaa qofka ugu horeeya haleaw waa ka xunaa qadka ka go-ay qofka xiga haleaw dhegeystayaasina waan maqlayahay kan xiga haleaw waa tahay dhegeystayaasha fariimaha noo soo diraya haddii aan kusoo noqdo dhegeyste kale waxuu leeyahay waa cabdullaahi oo dayniila joogo waxaan dhihi lahaa madashan waa kuwo u shaqeeya shisheeyaha wayna xusi doontaa taariikhda nama matelaan annaga waa inoo col ayuu yidhi
waxaa dhegeystahanna uu leeyahay yaasiin cabdiqaadir oo joogo wadajir waa yaab haddaan isqabqabsanno goormee horumar gaarayna ayuu leeyahay qof kale waxa uu leeyahay farxaan cabdirasaaq weeyaan oo jooga muqdisho gaar ahaan hodan waxay ila tahay nimankan sheegay in madal cusub yihiin ma ahan madal waa musiibo iyo dib u dhac waxaa tusaale u ah hogaamiyahooda xidig waa ra'yigiisa waxaa kaloo dhegeyste kale ra'yigiisa noo soo diray uu leeyahay magacaygu waa cali garre oo jooga tabeelaha waan fahmi waayey tabeelahaas waxa uu leeyahay aad baan uga xumahay ayuu kusoo koobay ra'yigiisa fadhiye aad ayaan uga xumahay ayuu yidhi asna hadday daacad yihiin maxay nairobi ugu shirayaan ayuu leeyahay waxay u shaqeeyaan kenya iyo ethoobiya sorry ayuu yidhi waa ra'yigiisa yuusuf dhegeyste lagu magacaabana wuxuu leeyay marka hore dhammaan ummadda soomaalida waa in salaamay haddii xildhibaanada isqaybiyaan sidee dowladaha caalamka noogu soo gurmanayaan ayuu leeyahay qofka qadka ku jira halow waa tahay dhegeystahaas waa ni maqlayahay kan xiga halow waa ku maqlaa walaal magacaada waa maxamed xasan dool oo kaala soo xiriiraya degmada wadajir maxamed soo dhowaaw ra'yigaada iyo madasha cusub ee nairobi looga dhawaaqay wallaahi walaalow aad baan ugu xunnahay waana qiiraysannahay dawladdeena sharafta leh ee horumarka ay ku tilaabsatana aan indhaheena ka qarin karin oan u jeedno in xildhibaanadii aan sumcaddii iyo sharafta aan u heynay inay ka hor imaadaan qaar ka mida taas waa nasiib daro xaqiiqdii aan aad ugu xunnahay wallaahi waa arrin aan ka dhidhinayno haddaan nahay shacabka soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba waa tahay aad baad u mahadsan tahay qofka xiga ee qadka ku jira halow waa tahay dhegeystayaasha fariimaha noo soo diray shabeelle media network facebookga ra'yigooda kasoo dhibanaya ama 488 waxaa ka mid a dhegeyste lagu magacaabo waxau leeyahy assalaamu calaykum waa salaamantiin bahda shabeelle waa maxamed maxamuud oo jooga yaakshiid dowladda keliya ku mashquulsho musuq maasuq ayaan la dagaalamaynaa waxqabad kama hayno ayuu leeyahay waa ra'yigiisa waxaa kaloo dhegeyste isna lagu magacaabo yaasmiin ay leedahay oo joogta madiina runtii dowladdeenna waan jecelnahay nimankan waa calooshoodu shaqaystayaal wax walbana waa la garab taagannahay ayay leedahay dowladdu ha guulaysato waa ra'yigeeda qofka kale qadka ku jira halow shabeelle waa ku maqlaa walaal magacaada magacaygu cabdullahi joogta madaafka gobolka shabeelle haya cabdullaahi maxaa kaaga baxay madasha cusub ee horu socod walaal anu madasha cusub ee magaalada nairobi laga dhawaaq waxaan arkaa inay yihiin koox calooshooda shaqaystayaal oonan dan ka lahayn dalkan iyo qarankan maxaad sidaas ku leedahay waxaan leedahay waddankan wuxuu leeyahay dawladda shacabku ay taageersan yahay ka jirta oo la rabo in waddankan lasoo celiyo qarannimadiisa iyo ciidamadiisa lasoo celiyo adeegyo badan baan leenahay waddamada dariska u shaqeeyan waxayna u shaqeeyaan etoobiya dalka ka u shaqeynaya ka mid ah waa tahay aad baad u mahadsan tahay shabeelle subax wanaagsan jimco wanaagsan waan salaamay magacaygu waa cabdisalaan oo afgooyo jooga ayuu yidhi waxaan dhihi lahaa ragganu waa kuwii dib noo dhigay waa dembiilayaal ee dowladda ha laga saaro dalka ha laga ceyriyo waa ra'yigiisa waa tahay dhegeysto kale waxa uu leeyahay salaad oo jooga dharkeenley shabeelle iyo martida waa idin salaamay waxaan dhihi lahaa horta xildhibaano maahan markii hore ayay musuq maasuq ku imaadeen waxaana la yidhi hal xaaraana nidig xalaala ma dhasho allah naga qabto asaga awood leh waa ra'yigiisa qofka xiga halow calaykum salaam waraxma magacaada walaal waa maxamed xasan maxamed haye soo dhawaaw ra'yigaada ra'yi wallahi bilaahi waxaan dhihi lahay dadka ku ciyaaray haye aad baad umahadsan tahay facebook shabeelle media network dhegeystayaasha ra'yigooda kasoo dhiibanaya waxaa ka mid a xaraabe garyaqaan xaraabe maasha allah waad mahadsantihiin idaacadda shabeelle anigoo ku hadlaya magaca shacabka waxaan ka soo horjeedaa xildhibaanada ku shiray nairobi waxaan u arkaa kuwa curyaaminaya qarannimada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in aysan taariikhda baalmadow ka gelin kana tanaasulaan madashaas waa ra'yigiisa ladan sheekh waxay leedahay shabeelle waan salaamay magacaygu waad aragtaan
xildhibaanada la leeyahay horu socod ma ahan waa gadaal u socod shacabkana ma matelaan ha la iska qabto dowladdan hadda curatay oo aanan dhisnayn 4 bil miyay mucaaradayaan malaha waa sii socdaa hadalkeeda malaha waa lagu shaqaysanayaa calooshood u shaqaystayaal dooni mayno hadday xamar imaadaan ha la wada xidho jilacow ha la geeyo afka ha loo geliyo waa ra'yigeeda waxayba yihiin cadowga dalka kuwa garab siinaya nairobi waxay ka dooneen ayaa ah in kenya ay garab siinayaan waa khiyaano qaran waa ra'yigeeda ladan sheekh ayaa soo qortay sidaas fardoose maxamed waxay leedahay jimco wanaagsan ha la taageero dowladda soomaaliya shacabkuna ha bannaan baxaan cid kasta oo ka hor timaadana ha ku bannaan baxaan waa ra'yigeeda saadaam xuseen waxa uu leeyahay hal xaalaana nirig xalaala ma dhasho xildhibaanada qayladhaanta wada xalaal laguma soo dooran waa kuwii hamigoodu ku guuldaraystay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdiinna ilaashada adinka ayaa iska leh oo taladiinna bay ku howlgashaa shacabka turkiga kama liidataan ee dowladdiinna ilaashada sidaas waxaa soo qoray saadaam xuseen oo facebook nagala soo xidhiiray awees sheekh cabdullaahi waxau leeyahy waa idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ayuu leeyahay kuwaas awalba ma ahayn xildhibaano soomaaliyeed balse waxay ahaayeen xildhibaano xil iyo xoolo doon ah waa tahay bahda shabeelle waa cabdiraxmaan oo jooga sweden aniga waxaan dhihi lahaa ayuu leeyahay dastuurka ha lagu daro xildhibaanka xasaanadda laga qaadi karo xilka hadduu gudan waayo xilkiisa waa tahay cabduqaadir cabdina waxa uu leeyahay cabduqaadir tarabiile loo yaqaano waxaan joogaa dharkeenley xildhibaanadaas waxay rabaan in runta loo sheego waa ra'yigiisa aad bay u badan yihin dhegeystayaasha facebookga ra'yigooda noogu soo diray maxamed axmed waxa uu leeyahay assalaamu calaykum baadi shabeelle gaar ahaan daadiyaha barnaamijka waxaan joogaa degmada hodan haddaan fikirkayga ka dhiibto waa in xildhibaanada fadqaladda wado ay joojiyaan haddii kale waxaan u arkaynaa qarandiid waa tahay waa ra'yigiisa maxamed xasan faarax jiisna waan ka xunnahay oo keliya ayuu soo qoray dhegeysto kale oo lagu magacaabo saadiq maxamed assalaamu calaykum ayuu yidhi wacalaykum salaam waxaan joogaa switzerland odayaashan xilligooda wuu dhammaaday ee dhallinyarada ha loo codeeyo markaan waa tahay fardoose maxamed waxay leedahay aad baan uga xumahay xildhibaanada ka hor yimid dowladda waa tahay waa dhegeystayaasha facebookga kuwaasi waan usoo noqon doonaa kuwo kaloo aad u badan ayaa ra'yigooda soo dhiibanaya dhegeystaha qadka ku jira halow hataa qofkaas waanu maqlayahay kan xiga halow waxaan siinayaa martida haddii aan ku laabto xildhibaan daahir ciro waa idi maqashaa daahir ciro haye maxaa kaaga baxaya ra'yiga dhegaystayaasha aad baan ugu faraxsanahay dadka ay matalaan oo shacabka ah oo ay awoodooda iyo magacooda ku shaqeynayaan kuwaani haddana shacabkii inay kasoo horjeedaan baa muuqata shacabka waxaan leeyahay halkaa ka haya wada maslaxadiina waxaa la hol shaqaynaya waa idinka waxa masiirkooda la wataa waa idinka annaguna idinkaanu idin garab taagannahay marka shacabkaas fiican baa ula dhacay shacabka dood dhegaysiga aan dhegaysanayay waana la dhacay waana ku raacsanahay ra'yiyada kala duwan ee ay muujinayaan waa tahay xildhibaan xerow adiguna dareenkaada iyo ra'yiga dhegaystayaasha inta badan ay ka bixiyeen madasha cusub halow xildhibaan xerow waa tahay inuu ka go-aan filayaa xildhibaan xasan keenaan mana maqasha adigu haye dareenka shacabku ay ka qabaan madasha horu socod wanaag shacabku waa mahadsan yahay waana malaynayey shacabkaanu habeeno badan iyo maalmo badan xukuumaddan markii la dhisayay ayay soo jeedeen ayna ku faraxsanaayeen waxqabadkeediina hadda way arkeen mana yeelayaan nin meelo kale laga xukumo
marka halkaasa ku sii wadeen aadan usoo dhaweynaya shacabka soomaaliyeed waayo haddaysa difaacan waxay leeyihiin shacabka soomaaliyeed waxaan iyagaa iskale ha difaacdeen shaksiyaadka doonaya inay ceel uga ridaanna ha ku banaan baxeen hataa banaanbax keliyaysa ku ekaane hanjabaadna ha ugu dareenaan leey waa tahay axmed baasto ra'yiga dhegaystayaasha maxaa kaaga baxay adiguna dabcan inaad la socotaan filaya runtii ra'yiga dhegaystayaashu ay jeediyeen ama ragga mas-uuliyiinta oo khadka ku jira ay jeediyeen waa markii koowaad oo aan raadiyahan shabeelle doodii uu sanada soo waday ay isku aragti noqdaan dadka doodaasi hagaya iyo shacbiga dhegaysanaya ay mid isku aragti noqdaan oo anigu aan goobjoogo waan dhegaysta wey horta waa marka koowaad taa waxay daliil u tahay oo ka markhaati kacaysaa ummaddii iyo dadkii hadalkoodii markuu is yeeshay in shacbiga uu dareen ka qabo aragtida madasha waxaan leeyahay sida intii hadashay ay u hadashay ragga mas-uuliyiinta ah oo maanta halkaan fadhiyana aragtida ay soo jeediyeen waa badbaadada dawladnimo iyo shacab ku jira xaalad adag oo ku tilmaami karo qofka marka isbitaalka la dhigo bareela lagu qaadaa ummad bareelo saaran in maanta haddana lagu abuuro khalkhal iyo is-hortaag waa nasiib darro aragtidaas lagu wada midaysan yahay inaanu wada ilaashano rajada muuqata iyo dawladnimada maanta jirta aragtidaasaan qabaa iyada ayaana fikir ah dadkana in ay ku badbaadayaan dawladduna ay ku badbaadayso lana muujiyo taageero dhaba oo dawladnimo ayaan anigu qabaa fikirkaasi waa tahay xuseen cali odowaa dhegeyste lagu magacaabo waxa uu leeyahay oo shabeelle media network raygiis noogu soo diray assalaamu calaykum shabeelle waa xuseen cali oo jooga muqdisho wadajir kuwa xildhibaanada sheeganaya waxay iska dhex waayeen dawladda xasan khayre waxayna doonayaan haddii ay xil waayeen in dawladda ay dumiyaan waa ra'yigiisa dhegeyste kale waxa uu leeyahay baadi shabeelle waa maslax maadey aadan ha loo istaago dawladda federaalka soomaaliya sidii dawladda turkiga insha allah waa ra'yigiisa waxaa kaloo ra'yigiisa nagula wadaagay facebookga mustafa xasan cabdi waxa uu yidhi assalaamu calaykum baadi shabeelle waxaan leeyahay xildhibaanada doonaya in ay dawladda ka hor yimaadaan ee ku shiray nairobi waa in lagala noqdaa xildhibaannimada shacabka waa in ay ka bannaan baxaan oo ay garab istaagaan qarankooda kuwaas waa kuwa qabiilka u beddelaya qaranka waa ra'yigiisa kama liidano shacabka turkiga ayuu leeyahay qofka xiga ee qadka ku jira halow maxamed axmed islaamo jamcaale inta dhegeysanayso dima wanaagsan magaca waa shariif sheekh cabdi axmed oo jooga degmada daynile waa tahay shariif soo dhawaaw ra'yigaada iyo dareenka aad ka qabto madasha la magac baxday horu socod maasha allah jamcaale waad mahadsantahay horta waxaa dhigayna oo kusoo dhacayo oo dhibayo waxaa waaye dalka meel ka baxsan ayaa horta horshir lagu qabta horta dhigsayn kusoo dhaca haye waxaa dhigaha u roon dalka soomaaliya muqdisho ayaa shir lagu qabtay waxaasaa lagu dhamaystay madaxda saasa kushir haddii xuntaa hataa waa noo fiican tahay maxaa yeele hadda nairobi lagu qabtay london lagu qabtay soomaalida halaga daaya dhihi lahay gacanta jawan lagu hayo madaxdina hadday imaqleyso kole waxaan dhihi lahaa shabeellena way mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa gacanta jawan oo lagu hayo halaga daayo waana taageersanahay madaxda gudaha lagu qabtay shirka aad baad umahadsan tahay qofka xiga halow waa tahay suldaan xuseen waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxaan joogaa sacuudi arabiya magaalada riyaad haddii aan ra'yigayga ka dhiibto kuwa isku tilmaamay madasha waxaan kula talin lahaa in dib loo howlgeliyo xabsiyadii dalka si deg deg ah oo kuwan dhaqan celin loogu samayn lahaa waayo ilaa hadda dawladda dembi ma gelin ayuu leeyahay dhegeystahaas oo sacuudi arabiya ku sugan
dhegeystayaasha fari kama qodna ee barnaamijka ka qayb galaya iyagoo dal iyo dibad ku suganna dareenkooda iyo ra'yigooda barnaamijka ka dhibanaya abba jawhar abba nin lagu magacaabo waxa uu leeyahay waa sida facebook ugu qoran laakiin magaciisa waxa uu noogu sheegay cabdirasaaq waxaan joogaa jawhar waxaan leeyahay allah ha soo hanuuniyo xildhibaanada waa ra'yigiisa hanad cumar waxa uu leeyahay ilaahay ha naga qabto xildhibaanadaas wallaahi kuwaas waa kuwo aan ka shaqaynayn danaha dalka qaar kale dhegeystayaasha wax ka baxsan anshaxa ay barnaamijka kusoo dirayaan waan ka codsanaynaa in anshaxa barnaamijka ay nala dhowraan adigoo ra'yigaada cabiraya si wanaagsan u cabir dhegeysto kale waxa uu leeyahay waa maxamed cabdi maxamed boos gool waxaan salaamayaa bahda shabeelle waxaan leeyahay xildhibaanada waa in ay ka shaqeeyaan danaha dalka qof kale waxa uu leeyahay isaguna cali suldaan xidig waa fidnoole waxa uu rabay aala sheekh iyo shariif sheekh axmed waa dabcan mar kale ayaan ka codsanayna dhegeystayaasha waxa ka baxsan mawduuca iyo anshaxa in ay nala dhowraan waa idin salaamayaa bahda shabeelle waxaan joogaa ayuu leeyahay dharkeenley waan ka xumay maanta in xildhibaano ay ka hor yimaadaan dowladda iyadoo dowladdu wakti yar un ay jirto waxaan dhihi lahaa xildhibaanada waxaad tihiin muwaadiniin dalkooda u baahan yahay in ay wax u qabtaan waa idin salaam bahda shabeelle ayuu kusoo kooba dhegeystahaana waxa uu leeyahay soomaaliya ha israacdo ha iska dhaafto dhibka waa dhegeysteen naadac ay ugu qoran tahay ee facebookgiisa aad buu umahadsan yahay qofka xiga ee qadka ku jira halo magacaada walaal magacaygu waa maxamuud maxamed cabdille marka ugu horreysa waxaa salaamayaa idaacadda shabeelle iyo barnaamijka quruxda badan ee aada nagu soo diyaarsheen waana mahad celinaa soo dhawaaw haye halkee joogtaa waxaa joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamarkisar hore u gal ra'yigaada ra'yiga horta waxa weeye mataqaanaa nimankan cusub ee meesha nairobi iskugu tegay horta ma taageersani waxaa maqli jiray mahmaha la yidhaahdo habarbuulka dhisto ayadaa dumisa shaleeta xildhibaanadii shaqaynayay ee dhisay dawladii soomaaliyeed ee rasidii shacabka soo celiyay inay maanta u kaba gashtaan una labistaan inay haddana dumiyaan runtii horta wax laga xumaado waaye aada ayaan aga xumahay waxaanu leenahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed annaga barnaamijka isaga annaga hanaga joojeen xildhibaanadan dawladeena waa ku qanacsannahay waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo in wakti la siiyo si loo ogaado horta dawladda waktigeedii ayadoo wixii la dhamaysan wakti fiican ay tirin in haddana la keeno mucaarad cusub ee haddana lagu furo buuq waxaan u arkaa aniga kolleyda fikirhaanteyda inay tahay in dalkii la burbursho dawladdii la baabaasho mana ahan dadkii mataqaanaa in dad shaksiyaad ah noolaadaan oo naftooda ay ku badbaadiyaan kana dhigaan dawladdii wax ayaga u maqaar saaran oo ayaga si gaar ugu noolaadaan marka fikirkii waxaa qabaa aniga in shacabka soomaaliyeed ka hortagaan iskana hor istaagaan iskana hadlaan baarlamaanadan waxaan codsan haddaa siin shabeelle nin kale oo saaxiibka ila tago siyaasi ah oo aada u badan barnaamij uu ka hadlo walow aa kala fikir duwanahay marka haddii macquulka waxaa jeclaan lahaa inaan u dhiibay qadka aye igu dhiib magaciisa halow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waan salaamayaa idaacadda shabeelle iyo barnaamijka quruxda badan oo ay daadihinayso iyo guud ahaan bulshada ka qaybgalaysa iyo siyaasiyiinta qadka ku jirta waxaan rabaa igu celi magacaada in kala fikir duwanaada ma xuma ugu horreyn magacaada xildhibaano qaran magacaada ugu horreyn adigoo raalliya magacaygu waa axmed maxamed cabdi haye axmed hore u gal jimcaal waa mahadsan tahay xildhibaanadu waa xildhibaano qaran dee shacabkay matalaan dee waxay ku matalaan wixii wanaaga dee waxaa keliya oon dhaliilaynaa waxay tahay in inta xildhibaanadii caasimadoodii iyo golihii shacabka ka tagaan oo ay tagaan magaalo kale iyo waddan kale ay dawladdii dhaliilaan dee taas waa qalad laakiin waxun ma ahan in xildhibaanadu ay shiraan maadaama fasax ay ku jiraan iska wareystaan ahwaasha iyo xaaladda waddanku maraayo wixii jira la istuso haddii dee qaladaad jirana la soo gudbiyo oo la tuso dawladda dee xildhibaanadu waa hadleen maysan dhihin dawladdaan burburinaynaa kamana hayno waxay sheegeen inay nidaamkay ka guureen qadbo 4.5kii axsaab in loo guurana ay danaynayaan marka waxaan rabnaa xildhibaano qaran waayo annagayna matalaan sharaf iyo xasaanaday leeyihiin waxaan codsan lahaa in sharaftooda iyo xasaanadooda lagu tixgeliyo inaanaan meel kaga dhicin
dee hadday xildhibaanadu qaldan yihiin oo dawladdii oo wax fiican samaynaysa ay ka hor imaanaysana ama ay isku rabaan inay ka hor yimaadaanna dee shacabka aanba taageerayn marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan ama ha ahaadeen siyaasiyiinta dadka ku jirta oo xildhibaanadii hore xildhibaan xasan kaynaan walaalka la yidhaha engineer siyaasi axmed baasto iyo asxaabta kale oo daahir ciira kamid yahay guud ahaantiin fikirkiina waan ku tixgelinayaa qof kasta dee in la kala fikir duwaana ma xuma laakiin xildhibaanadu hadday wanaagsan yihiin iyo hadday xun yihiinba annagayna matalaan shacabkay matalaan haddii dhaliilo ay leeyihin waxna ka qaldan yihin waxaan rabnaa inaan dhaliilahooda u sheegno ayaguna dhaliilaha si munaasaba oo habboon dawladdii usoo gudbiyaan waana mahadsantihiin guud ahaan siyaasiyiinta baabashabeelle iyo jimcaale aad waa mahadsantihiin aad baan kaaga mahad celinaynaa ra'yigaada dhegeystaan waxau leeyahay waa bakar waxaan dhihi lahaa dadka gelaya shirkaas inay joojiyaan ama ay ku galaan madaxtooyada haddii ay joojin waayaan ha laga saaro waddankeenna mahadsanid waa ra'yigiisa salaad sirmaqabe oo jooga degmada wadajir waxaan leeyahay ayuu leeyahay cudur tuugi mayno ee tawfiiqda allahna waafajiyo aamiin ayuu leeyahay waa maxamed amiin oo jooga wadajir runtii xildhibaanada qaska wada waan ka hortegi doonaa waana shisheey kalkaal waa ra'yigii uu isagu qabo qofka xiga halow alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaada walaal shariif oo jooga degmada afgoy shariif soo dhawaaw ra'yigaada waa kusoo dhawaay jimcaalow horta xildhibaanada nairobi ay ka shireen wax maanta aad iyo aad u foolxun waaye xilli dawladdan la mu'aaradana ma la taagan waxaan arkaynaa nasiib daro maanta xildhibaanadii meeshii aan ka filinayni inay kasoo bixi waayaan oo qaran dumis ay nagdaan haye marka waxaan u sheegayaa xildhibaanada inay ka waantawaan oo waxyaabaha ummadda dhibaya inay iska ilaaliyaan shacabka ay matalayaanna ay fiiriyaan danahooda iyada khaaska ay u fiirinin ummadda soomaaliyeed ay daneeyaan oo shalay ay u dhaarteen aad baan kaaga mahad celinaynaa saaxiibkii aan rabay in hal mar u dhiiba maadaama qadka oo mashquul u yahay haye igu dhiib alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaada walaal magaca cabdullahi maxamed raxmaan oo jooga degmada afgooya gobolka shabeellaha hoose haye ra'yigaada aad ka qabto madasha la magac baxday hor u socod marka hore waxaan salaamaya madaxda qadka kuwada jirta iyo adigoo daadiyaha barnaamijka waxaan leeyahay barako wanaagsan marka xigta haddii aan aragtida ka dhiibto xildhibaanada ku shiraya magaalada nairobi ma eedeynayo waxaan eedeynayaa dawladda kenya sababta xildhibaana ka tirsan kenya inay yimaadaan muqdisho ma samayn karaan isdaheysi ama mishin loo digayo oo dawladda kenya ma samayn karaan sababteeda oo dhibaatada weyn waxaa iska leeyahay dawladda kenya oo inta badan gacmaha kula jirta arrimaha soomaaliya taas ayaana ku eedeynaya ma eedeynaya xildhibaanada soomaaliyeed sharafta leh oo maanta fikirkooda ay nairobi geeyeen laakiin eedanka koowaad aan jeedina waxaan ujeedana dawladda kenya oo madaxweynaha soomaaliya la ogyahan in heshiis ay wada galeen oo ah in labada waddan ay wada shaqeeyaan ma ahan heshiiskana in soomaaliya mooshin loo keeno dalka kenya mooshinkana wuxuu ahaa xildhibaan inay ka dhigaan magaalada muqdisho oo horey buu dhaci jirtay aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa ayaan cilmi ayay leedahay gabar facebookga iyaduna ra'yigeeda kasoo dhibatay waxaan joogaa degmada wadajir xaafadda bulxubey meel kasta cadow wuu jiraa laakiin kuwa xildhibaano isku sheeg ah waa ra'yigeeda mar kalaan ka codsanayna anshaxayna nala dhowraan waxaan ku wacyigelin lahaa dawladda in ay xabsiyada dhigto waayo waxay camal tus u noqon lahayd kuwa dambe qalad geli doona waa ra'yigeeda mar kale anshaxa nala dhowraan dhegeystayaasha cismaan waxaan dhihi lahaa ayuu leeyahay waan fahmi waayey ra'yigiisa cismaan dhegeyste kale oo lagu magacaabo garwaax macalin xasan waxa uu leeyahay waxaan la yaabanahay xildhibaanada ayaga doortay ayaga ayaana ka hor yimid waa dawladda ayuu ula jeedaa dabcan iyaga ayaa doortay iyaga ayaana ka hor imaanaya ayuu leeyahay waa tahay dhegeyste kale waxa uu leeyahay saacid lakish bos waxa uu leeyahay waa ku salaamay daadiyaha barnaamijka aniga waxaan qabaa in dana gaar ah laga wato laakiin waan dareemaynaa markii hore ayay u dhisnaayeen in ay dawlad dumiyaan dan gaara ayay wataan marna ma u suuro gelaysa ayuu leeyahay waxaan leeyahay haddii ay barteen in dantooda
ay mar weliba ka shaqeeyaan markaan dan guuda laga shaqaynayaa waa ra'yigiisa waxaa cabdinaasir shaafici britishna uu leeyahay xildhibaanada waxaan leeyahay alle ka baqa waxaana joogaa london ayuu leeyahay cabdinaasir shaafici waa tahay mukhtaar borow waxa uu leeyahay waa idin salaamay bahda shabeelle laakiin ra'yigiisa nooma soo raacin dhegeysto kale oo ra'yigiisa isna ka dhiibtay waxa uu leeyahay bahda shabeelle waa idin salaamayaa mar weliba mooshin miyaan u joogaynaa aan ka hormarno mooshin ayuu leeyahay laakiin magaciisa nooma soo qor dhegeystahaas maxamed casheeye waxa uu leeyahay radio shabeelle dhammaan waa idin salaamay waxaan joogaa south africa waxaan ka xumaay xildhibaanada waxaana laga doonaa in waddanka uu galo meeshii ugu fiicneed ee dowladnimo ee dalka uu hana qaaday laakiin qaran dumis mar kale nooma laabto soomaaliya ha noolaato ayuu leeyahay dhegeystahaas cabdixakiin maxamuud waxa uu leeyahay waxaan joogaa finland waxaan dhihi lahaa soomaaliya ma rabto dhib soomaaliya ha israacdo waa ra'yigiisa qofka xiga ee qadka ku jira halow asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaada walaal shariif abuukar xuseen oo joogma degmada warta nabadda shariif soo dhawaaw ra'yigaada iyo dareenkaada ku aadan madasha horsocod abu waa ku dhawaay marka koowaad waxaan salaamaa radio shabeelle marka labaadna waxaan salaamaa martida barnaamijka ku jirta iyago barnaamijkan fakir khaldan inuu yahay waa iska caddahay waa barnaamij calooshaqaystayaal ay macnaha wadaan rasiidid iyo ragga uu hogaaminayo ay wadaan waayo waa la ogyahay marka koowaad ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qabto marka labaadna waxaan leenahay hadday saqiir noo wadin bedelka khayr badan ilaahay inuu noogu bedel ma fahan haye marka niyaho waxa waaye barnaamijkaas waxaa aniga hal talaan wataa haddaa hal habeen usoo bixi karno inaan dawlad wanaag ku taageerno oo macnaha banaanbax u sameyno haddana waa awoodnaa inaan mucaaradkan calooshaqaystayaala hal habeen iyo laba habeen iyo saddex habeen nafteena iyo maalkeena iyo didadkeena iyo xooggeena uhurna ma fahan marka waxaan leenahay ilaahay naga qabto shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay banaanbax wadajir hala sameyo insha allah aad baad umahadsan tahay maslax bedel waxa uu leeyahay waxaan joogaa dubai marka hore waxaan salaamayaa bahda idaacadda shabeelle maanta diyaar uma nihin in la keeno wax dowladda liddi u noqon kara ayuu leeyahay maslax bedel aad buu umahadsan yahay dhegeyste kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum bahda shabeelle waa dhegeyste la yidhahdo macalimow oo jooga dharkeenley ayuu leeyahay waa ka xumahay waa fariintiisa waa iga go'day dhegeystahanna waxa uu leeyahay waan salaamay bahda shabeelle ayaan oo joogta sweden waan ka xumahay ayay leedahay xildhibaanada mucaaradka ah dhegeyste kale waxau leeyahay xildhibaanadaas ra'yigooda ayay bixiyeen dabcan magaciisi nooma soo qorin dhegeystahan isna la yidhaahdo cabdullaahi cali waxa uu leeyahay waxaan dhihi lahaa markaan aynu ul iyo diirkeed noqonno horay tafaraaruq waynu ugu dhibtoonnay qofka xiga halow halo magacaada walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu amiin suufi cabdal maqash amiin soo dhawaaw halkee joogtaa warniyow axmed weynaan ku noolahay haye aad iyo aadaan ugu xunnahay horta dadkan oo hadda hor u socod iyo oo macnaha isheeg u fadhiisteen meesha waddan shisheeye haye marka waxaa fiicnad haddii barnaamij noocaas ay la imaadaan in dawladay doorteen nidaamay samaysteen marka hadda inay macnaha dhinacaas laga waco oo la dhaho isheeg maada inta dana burburinka sameeya haye marka annaga burburin horta diyaar uma nihin haddaa meer muqdisho nahay haye xaraarugaan taagan nahay ma fahamti haye marka haddii ilaahay oo karaali noqdo sidii ilaahay oo qadaray noqonaysaa ma fahamti waan ku gartay marka waxaa u roon macnaha hanjabaadna ma ahan isheeg in meeshooda ay soo dhaafin ma garatay haye marka macnaha xadaa jiro xadkooda inay ku ekaadaan annaga hadda nadaamaa helnay dawladaa helnay dawladda 100 sano hadda kolley way gaartay sidaan filaayo boqol maalmood
boqol jir way gaartay 100 sano adeer 100 maalmood 100 maalmood 100 maalmood way jirtaa ma fahanti ilaa haddana macnaha in wax xumaan amba beledkan xabad iyo wax hadda oo ka socdo rafaad iyo dhibaato ma jirto haye marka in hadda lagu soo jabhadeeyo kulay dhibaato way hadda is sheegeen dadkan macnaha in oo dadkii wadanka cunaqabateenka amba dhibaatada iyo wax ku hay inay ahaayeen hadda is sheegeen marka adigu waxaa leedahay yeesan noqon tuka cambaar leh oo dhinac dadka ka raacaan aado weyn wili eelbooradii laga soo degi lahayo muqdisho xataa waa lagu sugi karaa xataa ayaga macnaha dad weyn ma inta shirka waxay uga cabsadeen oo u diideen nin la yidhaahdo sambalool dharbaaxsha badan ma fahanti waa tahay aad baad umahadsan tahay amiin ayaan Sweden waan ka xunnahay xildhibaano shacabka in ay danahooda ka hor yimaadaan raba dawladdani waa cusub tahay in laga hor yimaado maaha marka allaha laga baqo shacabka daalay ha loo naxo ayay leedahay xildhibaanadaas ra'yigooda wuxuu ila muuqdaa waan dooranay wuuna magacaabi waayey annaguna waan duminaynaa marka ummadda Soomaaliyeed ayay u taallaa dawladda Kenyana waa dawladda Kenya haddii ay go'aan u gaarayso waan ka xunnahay in ay ogolaato shir noocaana Kenya waa tahay waa Xuseen Cali Odowaa ra'yiga qofkaas qaba xasan aadan qaanena wuxuu leeyahay waan salaamay dhammaantiin haddaan ka hadlo fikirkayga kuwaan waan fahmi waayey waxa uu leeyahay waxaan u malaynayaa aad baan u fahmi waayey qoraalkiisa aad buu isugu dardarsan yahay daahir oo jooga Sweden waxa uu leeyahay haddii aan fikirkayga ka dhiibto xildhibaanadan tegay Kenya waa kuwa galay dembi bacdama ay kursigii baarlamaanka u adeegsadeen si gorgortan ah oo ay iibsanayaan diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee xildhibaanada Soomaaliyeed haddii aan si kale u dhigo 86 xildhibaan waa kuwii u ololeynayay musharaxiintii laga adkaaday kuwaasoo u adeega hay-ada shisheeye sida kuwa reer galbeedka iyo Ethiopia iyo wixii la mid ah ra'yigaas dhegeystayaasha qaba oo ay magaciisa ugu qoran tahay qoray dayax madaale waa tahay dhegeystayaasha fari kama qodna dhegeysto kale waxa uu leeyahay Shabeelle xaqa u shaqeeya aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha lambarka gaaban 488 iyo Shabeelle Media Network ra'yigooda nagula wadaagayay qofka ugu dambeeya haddii aan u akhriyo waxa uu leeyahay xalaal maalin cad ayaa la quutaa in ay dibadda ku shiraan ayay dhahayaan qarandumis ma nihin isma qabato dhigaha shacabka ha ka ilaaliyaan waxa dhibaya waa jaamac shire oo jooga kaxda barnaamijkii maxaa karuun ah wixii la sheegay oo ay nagala qayb galeen marti sharaf kala duwan oo aan ka xusi karo ekis xildhibaan daahir ciro xildhibaan maxamed iile geedi xirow ekis xildhibaan xasan keenaan iyo axmed baasto dhammaan mas-uuliyiintaas iyo siyaasiyiintaas intaasayaan kusoo afeeraynaa anigoo jimcaalaha waa idinla socodsiinayay injineer mustaf cabdi abshir iyo maxamuud faarax siidow lojig ayaa wadajir farsamada uga qaabeynayey tan iyo intaan dib u kulmayno barnaamij kan la mid ah waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabad gel damiruna xoogu shadha kulmiga ka qabtan lahayn